السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان وناكسن مال الله الماشي أدونك جوجتينا maanta mawduucina wuxuu ku saabsan yahay laba shay qaabka caruurta lagu tarbiyay lahaay qaabkii caruurta oo maxaa la dhahay sheeg hooyada guriga joogta inay teacherka walwasho ma aha raadiso dhibtoota walwasho now crime time ajira cunuga teacher ma geey kartay teacherka asaga ka cabsana ka orday asoo ka orday asna ka sii orday meesha fahmaysa qaabkii fudud oo hooyada wax ku bar lahayd ilmaheeda oo ugu fudud hooyada wax ku bar lahayd ayaa insha Allah isniin kasta u soo gelinaa insha Allah biidilaahi kariim qaabkaas insha Allah ka hadla doonaa iyo qaabka hooyada ilmaha markay soo gaaraan 11 jir ilaa iyo maxaa la dhahay sheeg ilaa iyo 15 jir ilaa 18 jir qaabka ilmaha markay grow up ay noqonayaan markasta waxay la soo baxayaan yani موجود عصب اللي صباحا مركز تبوح اللي صباحا أديك والويسا أديك إيجلا إنه وحكسان إسكو ملايا أديك اللي وحكسين أديك والد أب وإكنور جرينا أصحاب طولا شذا مركز قابك إلما صاحب والنقل لهاد قابك عنق قال وضد أو تاجنا لهن أو عنق وضد تاج عكسو حرين لهاد وصاحب والنقل لهاد قابك أصحابتي صاحب والنقل لهاد يعني إن شاء الله قابك إن شاء الله نيسو قلنا إن شاء الله ثلاثة كست إن شاء الله maalin kastoo talaade waxaan soo gelinayaa qaabka ilmaha loo tarbiyeynayo tarbiyada ilmaha qaabkay ku imaan kareysa insha Allah talaade kastoo gelinaa biidnillaahi kariim haduu ilaahay raali ka noqdo biidnillaahi kariim iyo qaabkii ilmaha loo bari lahaa si fudud oo ilmaha wax loogu bari karo biidnillaahi kariim hooyo kastana waa iska jeceshahay inaa ciyaalkeeda tarbiyeysato anima tarbiye lay sheegaya cunuga ilmaheeda waa tarbiyeysan karaya waxaas dadka badanaa ku fikirayaan ma ha ku fikirin maybe waxa laga yaabaa ina tarbiyada ay ka qaldan tahay maybe waxa laga yaabaa inay ku saxsan tahay yani ha adilla ina saxsan tahay umreena ano adada fiicanta ilmaha tarbiyeysanaysid waxa laga yaabaa hooyo kale ilmaha tarbiyada si kale iyada u fahantaa laga yaabaa laakiin badanaa sida anagu majority dan u badanaha ama Europe aan joogna ama Soomaaliya aan joogna ilmahan waxay u badan yihiin ciyaalka wadada ay taagan yihiin wadada ilmihiin wadada ay taagan yihiin hadhow markii weynaadaana fadhi ku dirirka hadana taagan yihiin nimanka u jeedada hada fadhi ku dirirka taagan oo shaahiga fadhi ku dirirka cabaayo oo meesha iska fadhiyo oo waqtigooda dhan ku wasta gareyno inay meesha u taagnaan markuu yaraay oo wuxuu soo taagnaa wadada taagnaa soo waqtiga cunuga hadda markuu yar yahay hadda waqtigiisa oo xisaabsan yahay oo juhdi aad gelisid oo waqtigaada aad siisid meelaha waqtiga oo gelinaa dhan aad u sheegtid yani cunugaada wadada ma taagnaana ama ma laga faa'iideysanaya waxa jirta cunuga wadada haduu taagan yahay qof wadada taaganaa jirta oo ka faa'iideysanaa ku shaqaysanaa jirta cunugii qofkii markuu ku shaqaysto biri hadan waxa ku soo baxa ama la dilaa cunuga ama waa la dilaa ama wuxuu noqonayaa kuwa waaweynka uu noqonayaa ama wuxuu cunugii ama xabsiyo galaya saddexda shay ku soo baxa adan waa walwalaysa marka nidaana beena u sheega xalada ilmeyga ani waa tarbiya ma aqaan meesha in kaarta soo dafto marka nawta maybe waxa laga yaabaa tarbiyada inay qaldantaa oo ilmaheena anaga waqti aan siinina laga yaabaa waqti waa shay qaali ina caruurta lagu bixiyo waay markasta video kasto ka hadla aniga wuxuu quseeyaa ina caruurta markasta priority-ga iga la siiyo aad wax shay qaali u ah waay ilmaheen waqti aan siina oo waqtiyaashina qaaliga aan siina si ciyaalkeena ay ku noqon ciyaalka wadada ay ku noqon ciyaalka sigaarka meelahaskiga caba ay ku noqon ciyaalka lagu shaqaystay ku noqon aan ka faa'iideysana caruurteena aan ka faa'iideysana aan u faa'iideyna aan ka ha ogaadaan inay cadawgooda banaanka jooga aniga kuma dhahooyo ilmaha guriga ku haay ee xabsi cunuga guriga ugu dhigmo ku dhahooyo maya not means dina ku dhahay cunugaada guriga ku hay adoona guriga ku haynin oo bi'ada oo dhax socod cunugaada oo dhax socod laakiin waqtiyo u kala sameeyay cunuga waqti oo yani oo kala sameeyay waqtiga asxaabtiisa waqtiyaasha oo kala sameeyay insha Allah aan ku ni sheegaya biidnillaahi kariim halqan oo kala sameeyna party oo kala sameeyna biidnillaahi kariim insha Allah waa wax anaga dhan wada afacay waay iyo hooyada
ta kaloo ka hadli doona waxaa waaye iyo hooyada iyadoo gurigeeda joogto qaabkay ku shaqaysan karto iyadoo gurigeeda joogto aana meela aadin ina qaabkay ku shaqaysan karto oo fudud hadday joogto Soomaaliya hadday joogto Yurub hadday joogto Carabtan meel allaale meeshay joogto qaabka fudud ay hooyada ku shaqaysan karayso iyadoo gurigeeda joogto aan insha Allah inay soo geli doona saddexdaas aan ka hadli doona markastana waxaa u daneeyaa hooyada caruurta u daneeyaa cashaan aniga ayno hooyadina ani waa caruurtana waa dhalmo soo nimanka isdihiin maxaa idinkan mawduuca nigu soo geli waaysa insha Allah waan ka hadlaa biin ilaahi kariim nimankan mawduuc ku saabsan biin ilaahi kariim insha Allah laakiin insha Allah kuwi caruurtooda tarbiyasta Allah naga dhiga oo waqti si Allah naga dhiga kuwi yani insha Allah وكهري دونتي برنامج كان سو جريد دون بإذن الله كريم قابك عنق وحبر لهاد قابك عنق إن هذا سو كعاية قابك تربية لهاد كل وانك هلا دونا إن شاء الله بإذن الله كريم وحني ده مالن تسنين مالن تثلاثة بإذن الله كريم لبدأ مالن عن سوق لقادنينا بإذن الله كريم إن شاء الله أنتي موضوع لمتكو كل من دونا وحيدي ده كل جين وايد وزجع لا ساي سبورت جرينيسين سا ما شاء الله فيديو يا شيء داونو إلى خير الله نسي ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت العزيز الحكيم فلك الحمد أنت القوي العزيز فلك الحمد أنت الغفور الرحيم فلك الحمد أنت السميع البصير فلك الحمد أنت الأول فليس قبلك شيء فلك الحمد وأنت الآخر فليس بعدك شيء فلك الحمد وأنت الظاهر فليس فوقك شيء فلك الحمد وأنت الباطن فليس دونك شيء فلك الحمد لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله.